السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا وحنكو هلا في صومالي أنا ولا شقينا هوينكي إيو الفتاح so that at least they understand what I'm talking about. horta wax kastoo la qabto midana anaga muslimiin ahaynahay soma anaga muslimiin way muslimiin hadaan nahay waxana laga rabaa jirta maxaana laga rabaa waxaas ilaahay ogi jidaas ilaahay raba inaan ku shaqeyno. If you do that you will make it your life. wala soo sheegay kolleyto history wajeer ka dhacay dadka badan way garanayeen laakiin ninkii soo baxo oo dhaho waxaan qabana waliba dadka xil ka qaateen annagoon xil nala siinaa xil isgelina annaga. I can remember one time anigiyo we were about 3-4 I don't know Irshad the Dr. Irshad Honorable Mohammed Ilmi tulikuwa tunatembea usiku kusaidia because you understand Kiswahili a bit kusaidia those people during it was a drought just to make them live we were buying for them donkeys way ku shaqeystaan. That was through Oxfam. dhiba imaaday dhibka ma indhahan ka fiirsanayna maya way anaga haweenka waxaan is dhahnay waana nahay laf dhabarka bulshada maxay u tahay ada fiirin nin guri ka baxo ilaahay qaatay guriga aas ka tagay iyo guri hooyo looga tagay kolleytuba dad wax fahansanaatihiin aabba hadduu dhinto hooyo uujin ha u karisee ilmaheeda meel ay saare laakiin aabba hadduu dhinto waxaanba ka baqaynaa inaas I mean hooyo hadday ka dhimato waa iska waalnaa leen kalaasba galaa wax fiicanna waaba iska jiraan dad yaroo wanaagsanna waa jiraan but the majority waa haweenka sida dad nin kastoo xil qaada xisaabaa jirtay ogow nin kastoo xil qaada ilaahay hortiisa istaagi dad qabiil ku shaqaysa caalinka ku arkaa haddaad si lillaahi ku shaqayso cabsi ah rabbiga ku jawaaba inta noosha lagu jawaaba sida daraadeed wax kastoo la qabto cabsida ilaahay ha ku jirto. bari waxaa jirta gabdhahayna oo xafiisyaha ka shaqeynayeen leenka ay ka baxeen markasta waa dhahani gabdhahana waa inay isbedelaan anigana iqab naagan gabar shaqaalana igu qab ma dhaca jirin annaga waqtigayn markaan uur yeelano oo xaamilo aan noqono oo shaqada aan dhalnaan gabar doon jirnay habeenkii 10 saac soo kaca jirnay guriyaad kala hagaaj quraacdii oo musayga cuno lahay ilaahay amarkiis 4 saac cuno lahay subaxdii aan karnayna hadda tiim ma jirto marka sida daraad aanan ay qabnaagna igula qab ma dhacaysa save that little money you could have given to the maids weelasha qeer Allah siiyo waa run you are the features of tomorrow you are the leaders of tomorrow laakiin maanta fiir aw dhalinyaradayni horta geedkan la dhuuqa Oh, county commission, I'm commenting on the issues of drugs. Drugs is becoming too much in this town. And we have the security there. We have the county government. We have the community. وأنا وحي حنون أرجن وهورستاج جرني. وهورستاج جنون تقال مجرني. على كل حال وردين تأنكو دقنو. If you do your things accordingly, with the fear of God, everything will be successful. المهدين تانكو شمنو إن شاء الله المهدين تانكو شمنو مركا هداد لله وحكستو كسو بسو أدنا وحيس ربها الشيء لكن أديك win that grave قبري أنا سوق سما وقبري قاسين كوجلينا لبكذا إلى ناس نون حريص تنبويه. Thank you madam. مركا سيد الدرادة إن شاء الله
Be faithful. Everybody who has a responsibility everywhere, being mother, being father, being, youth or whatever, kindly, the officers in charge, let's change Wajir to heaven. We can do it. Let's change. Wajir is the first district who has brought peace. Let's also, others have copied. There was a time we went to me, Mama Fatuma Muhammad, and the late Habiba Sheikh Abshiro, where people were killing one another. We were carrying eggs for sample of peace. Kindly take this peace. For sometimes it worked. I remember we visited a school where the Boranas were told to stay aside, and the governors were in class. And I called the district commissioner for Moyale. I mean not Moyale, Marsabit. I told him what is going on. People don't have even water. And we made it. You see, nobody cannot do anything. All of us wake up and see how you can change your county.